marka dhagaha fura Soomaaliyeed Axmed Madoobe waxaan rabaa inaan asaga marqaati gashto anigoo ah Maxamed Nuur Boole wasiirka xanaanada xoolaha iyo dhirta daaqa dawlad goboleedka Jubbaland ahna xildhibaan annagoo ah ayuu noo yeeray subax wuxuu nagu yiri nimayahow jannada Soomaaliya waa Jubbaland dawlad guunaan xiriir la leenahay tacliinteedana ay guun tahay dhaqaalaheedana uu guun yahay dawladdaas waa Kenya aan ka sii jeesano Soomaaliya aan u sii jeesano dhanka Kenya aan ku darsanna waa janno dhulkeena warshado iyo beere iyo wax soo saar iyo wax walba leeyahay wixii wax ka sii daran iyo wax ka badan oo wada janno ah la soo saaraya iyo shidaalla bad iyo biriba xaggan u jeesanayna Soomaaliya qabqabteeda iyo qaylideeda aan iska dayn bicilaa ila kacay oo waxaan iri Axmedow ma kilinka inoo distan aan raadinaan leen annagana adna masaaka leedahay Kenya aan raacno oo maxbuusti ay ku qaadaysay sakeelada xaarka aan noqon saasaan naleeda saak wuxuu ugu yiri adoo nool inaan janno ku geeyaan janno nolosha inay janno kugu imaadaan rabay konton sano hadda kadibna wax lagu fahansiin doono mac salaam waa kacay fadhigi buu noo kacay kuwii kale ma ay hadlay Axmed Kenya qabyo qoraal uu la galay inay Kenya inay Jubbaland kamid tahay gobol kamid ay tahay ama kilin kamid ay tahay Kenya dalkaas heshiisa lagu galay Axmed xarig gumaysigu ku dhashay xarig gumaysigu ku soo karay haddana gumaysiga dabada kula jira wuxuu moodayaa sida asaga loo gumaysan jiray in dadka Soomaaliyeed loo soo gumaysto war dadkan waxay diideen Talyaani iyo Ingiriis gumaysan way oo cagtooda gelin way oo isaga tagay marka ay noogeen laba carab la way ilaahayna kama baqay noocay oo Fircoon u hadli jiroon oo hadla Fircoon wuxuu dhihi jiray hadalkayga hal qaadana hadal kala ma jiro cid kale hadalkeena kartana ma jirto Axmed waa noocay Fircoon hadalkiisa Jubbaland hadalkiisa bas ka soconay qof kale hadli kara ma jiro anuu bigu yiri anaan u weyn anaan u yar kayga ninkan sida cadiis ku qaadanin Jubbaland jooga ma moodo joogay sootii Fircoon ma hataas nabi Muuse culimada Soomaaliyeed waxay og yihiin Axmed inuu 30 sano jaajuus ah waana qarinay waxay u sheegayeen anima aqaan ana sheegay ayagana way ka marqaati furi doonaan Axmed maalintii u horeysay asagoo bambaasa miis kule markii Morris la dilay Sheekh Xasan Turki Allah u raxmadee Kemboni asagoo joogo waxa la yiri yaan u diri karnaa meesha xogteeda dhafta keeni kara doomaan loo gaday oo gaalada u gaday markaas la ganacsada ma ahayn jaajuusnimo ku joogo subaxii dambana wuxuu isku milay oo busto u gashtay midowga maxkamada markii la jibeyna 7 asaga ku ahay 7 nin oo kale waa la dilay asna waa la soo qaaday soo dhaawac maxaa loo soo qaaday ma kuwa kale laga jeclaa waxay siri masaare imaad goyseen gibilkayga kugu jira waxa asaga loo soo qaaday oo gaal soo qaado gaal kale ugu dhiibay ma garan kartiin idin wuxuu tacliilinayaa dalka iyo dadka iyo diintaba uu ka jaajuusaya waana og yihiin dadka wadaadada oo maalintaas uu isku dhax qarinay kuwa badan oo isku dhax qarinay idinkooda ogtiin waa jiraan